sida ay caddaynayso macluumaadaan helnay dowladda Sacuudi Carabiya waxa ay ku wargelisay dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble inay joojisay booqasho ay dowlad goboleedyada madaxdooda iyo isagu horay ugu casuuntay dalkeeda iyadoo aan bixin sababo faahfaahsan oo ku saabsan dhacdadan sida ay xaqiijinayaan ilo xogaal oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya xoguhu waxa ay tilmaamayaan in wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay madaxtooyada dowladda federaalku marisay dhambaal ku wajahan boqortooyada Sacuudiga oo ah inaan la aqbali karin safar ay ku wada jiraan ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxda dowlad goboleedyada taas beddelkeedana ay codsatay fiila Soomaaliya in casuumaadda lagu kala yeelo ra'iisul wasaare Rooble balse madaxda maamuladu aysan qayb ka noqon karin dhambaalkaas waxa uu gaaray boqortooyada Sacuudi Carabiya taasoo qaadatay in looga jawaabo muddo 72 saacadood gudahooda waxaana boqortooyadu ay go'aansatay in casuumaadda lagu koobo oo kaliya ra'iisul wasaaraha dalka injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa horay casuumaadda dhinacyada oo dhan uga soo gudoomay dalka Kenya mana uusan la wadaagin sida ay macluumaadku cadeynayaan madaxweynihiisa Farmaajo oo aysan hadda isku wanaagsaneen ama lahayn xiriir toos ah sida ay timinayaan ilo wargalah oo ku dhow labada dhinac Rooble ma jeclaysan jawaabta cusub ee uga timid safaaradda Sacuudi Carabiya ee Kenya isagoo ay maanta isku diyaarinayeen isaga iyo madaxda dowlad goboleedyadu inay u socdaalaan dalka Sacuudi Carabiya balse dhabarjab siyaasadeed ayay ku noqotay tallaabada cusub iyo jawaabta ka timid Riyadh dhambaalka laga diray fiila Soomaaliya waxaa lagu faahfaahiyay in qarannimada dalka ay dhaawac ku tahay in madaxda dowlad goboleedyada la casumo ayadoo taasi lagu sifeeyay mid hoos loogu dhigayo dowladnimada dalka xiriirka labada dal gaar ahaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo kaliyana ay tahay in kaligiis la casumo maadaama booqashadu ay tahay mid qusaysa xiriirka labada dal Sacuudiga iyo Soomaaliyana ay ka dhaxayso xiriir weyn oo soo jireen ah dowladda boqortooyada Sacuudigu wixii ka dambeeyay xiisadii Khaliijka ma aysan jeclayn siyaasadda Soomaaliya oo xilligaasi sheegatay inay dhexdhexaadnimo qaadatay waxayse habdhaqanka diblomaasiyadda kaga sokeeyaan Imaaraadka Carabta oo faragelintoodu ay ahayd mid qaawan iyo tan Qatar ee iyana ku salaysan aniga ay raac ama iga tag booqashadan waxa ay noqon lahayd mid taariikhi ah 4 sano ee la soo dhaafay madaxda dowlad goboleedyadu waxa ay ka caaganayeen safarada dibadda ee ku salaysan arrimaha siyaasadda marka laga reebo meelaha qaarkood oo madaxda dowlad goboleedyada xiriir dhow ay kala dhaxaysa dalalkooda gaar ahaanna Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo saaxiib iyo xiriir dhow bilihii ugu dambeeyay ay kala dhaxaysay dhinaca Puntland iyo Jubbaland Farmaajo lama dhacsana Sacuudigu waxa ayna aaminsan yihiin inuu sabab u yahay in lagala safto dhinacooda xilli ay baahi weyn u qabeen Qatar iyo Dooxa taas oo loo yahay in ay kaliftay in Sacuudigu ay xanimaan wax ka badan 300 milyan oo dollar taas oo loogu talagalay dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha bishii February ee sanadkii 2017 ay dowladda Sacuudi Carabiya ugu deeqday Soomaaliya lacagtaasi waxa la rumaysan yahay 50 milyan oo kaliya in Maxamed bin Salmaan ogolaaday in loo fasaxo Soomaaliya isarag gaar ah oo isaga iyo Farmaajo dhex maray kadib markii ay dhacday xiisadda Khaliijku Sacuudiga Imaaraadka Qatar iyo sidoo kale Masar waa 4 dowladood oo Carbeed mid ka mid ah oo ah Masarna Soomaaliya waxa ay ku sii wada jiraan ururka Midowga Afrika laakiin saaxiibtinimada dheer ee wadamadan ka dhaxaysay waxa ay u muuqataa mid markasta ku salaysan danaha taasoo ah waxyaabaha waaweyn ee xiriirka diblomaasiyadeed tixgeliyo haddana ma wanaagsan xiriirada wadamadan badankood iyo Soomaaliya gaar ahaanna marka ay joogto masaarida oo doonaysa in Itoobiya lala yeesho xiriir aan sax ahayn oo looga soo horjeesto keedana la tixgeliyo Sacuudiga marka ay joogto oo uu danaynayo in isagu cid uu nocolana naco iyo waliba sidoo kale Imaaraadka oo yana aaminsan fikradda ah in iyaga oo kaliya lagu kala yeelo xiriirka lana jaro cid kasta oo iyaga ay hayaan wadamadan iyo xaaladooda sida loo maareyn doono waa caqabad culus oo xafiiska madaxweynaha iyo ka ra'iisul wasaaraha u taala xataa marka ay dhamaato doorashada hadda loo madlan yahay cid kasta oo soo baxdana waxa ay ku noqon doontaa caqabad ay adkaan doonto hannaankayda maareynta
Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka.